بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo taariikhdu tahay 14 bishii saddexaad Maxamed Mooge oo ka tirsan qaybta bariga anigoo ah taliyaha qaybta bariga Hargeysa ee booliiska halkan waxaan ku soo bandhigaynaa oo aanu sheegaynaa in habeen dhaweyto ciidanka booliiska ee qaybta barigu iyagoo kaashanaya ciidanka wardoonka inay qabteen qamri badan oo ah 207 litir ee dareejiina taasoo ah shaqadayada aanu idmanahay inaanu qabanno muqaadiraadka dadka lagu dhibaataynayo ama aafada ee dadka dhibaataynayo qamrigaanu qabanay uguma horeyn qamriye fara badan hore waanu qabanay laakiin kan wuxuu ahaa qamri aanu qabanay habeen dhaweyto iyadoo wardoonku ciidanka wardoonka ee magaalada Hargeysa naga gacan siiyay oo ciidanka wardoonku hadii goor uu nala shaqeeyaa wixii ay arkaan isla markiiba haddii nahay qaybta bariga si degdeg ah uga jawaabnaa sida anagoo iskaashanay ciidanka wardoonka ayaan qamriga ku guuleysanay qabanay halkan waxaan runtii uga mahad celinayaa ciidanka saldhiga Maxamed Mooge iyo ciidankii 77 ka lahaa iyo ciidankii wardoonka oo qamriga qabanay waxaan halkan qamriga waxaan u soo bandhignay oo aan u sheegaynaa oo bulshada u sheegaynaa dadka ku hawlan qamri quudatada loo yaqaano ee qamriga ka shaqeysa inaanay badbaadayn oo meel kastaba booliisku ka daba gelayo oo soo qabanayo oo hay'adaha sharciga horkeenayo halkan waxaan qamriga aanu qabano 207 litir oo dareejiina iyo laba baabuur Corona iyo baabuur Indhacada labadii eedeysanayaashina ay markaa aanu aqoonsanay yadina aan ku daba jirno iyagana hadii la yiraahdo insha Allah sharciga horkeenayna haddaba halkan kelmadeydan ka oranaya anoo ku hadlaya afka taliyaha ciidanka booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sareegaas Maxamed Aadan Saqadi waxaan halkan ka soo jeedinayaa cid kasta oo isku dayda inay qamri ka ganacsato ama cabto inaan talaabo ka qaadi doono waxaan kale sheegaynaa oo bulshada aan ka codsanaynaa bulshada cid kasta oo qamri wada ama qamri meel ku aragta inay naga caawiyaan oo noo sheegaan meesha lagu hayo isla markaana annagu haddana ciidanka booliisku isla markiiba waan ka daba gelaynaa marka sidaas awgeed baynu markaynu iskaashano ayaynu isla markiiba aynu ka qaban karnaa qamri kasta aynu gacan marka bulshadu gacanna siiso waayo bulshadu waa indhaha booliiska oo dhegaha booliiska oo gacmaha booliiska booliiskuna waa saaxiibka dadweynaha oo waxa weeyaan wixii xun oo ay ku xun ma garanaysaa muqaadiraad ha noqdee dambiye kasta ha noqdee booliisku wuxuu u idmayaa inuu ka qabto habeen iyo maalin booliisku wuxuu soo jeedaa wixii qaldan inaanu gacan bira ku qabano marka mar labaad waxaan u soo jeedinayaa bulshada gobolka Maroodi Jeex qaybta bariga saldhig kastaba ka kooban ahaateen oo caasimada ku yaal ama saldhigyada dibadda ee qaybta bariga wixii aad muqaadiraadka iyo dambiyada kaleba inaad nagala shaqeysaan si aan anaguna talaabadii ku haboonaad uga qaadno sharciga horgeeno marka qamrigan iyo qamriyadii kale ka horeeyay iyo dadkii ku eedeysnaaba sharcigan horgeyn doona hadii la yiraahdo qof kasta isku daya inuu muqaadiraad bulshada dhex keeno ciidanka booliiska ee qaybta bariga iyo ciidamada kale booliiskaba ka baxsan maayeen sharcigan horkeenayna gacan biraan ku qabanayna